musharax madaxweyne xildhibaan Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan oo kulan dhiirigelin iyo taageero isgarab istaag loogu muujinayo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka iyo waxgarad kale oo munaasabada lagu casuumay ayaa soo bandhigtay barnaamijkeeda iyo waliba qorshe howleedkeeda. Xubnaha kulanka la qaatay musharax madaxweyne Fawziyo Xaaji Aadan oo goobta ka hadlay ayaa si isku mid ah taageero heel iyo hoob u muujiyay musharax madaxweyne Fawziyo Xaaji Aadan waxaana mid kasta xildhibaankiisa iyo xildhibaanada kale ee labada gole ugu baaqeen inay codkooda siiyaan musharax madaxweyne xildhibaan Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan isla markaana fursadan qaaliga ah aysan dayicin. mudane marweyn waxa aad farxadii ah maantadan meel aad u qiimo badan xaflad aad u qiimo badan ahna taageerida marwa madam Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan ahna hooyadii aan dhihi karno waxay tahay hooyadii ummadda waxa waaye Soomaaliyeed ayadoo ah aasaasihii jaamacadda Hargeysa ahna qofkii ugu horeeyay noqda wasiir qof dumar ah oo noqda wasiirkii arrimaha dibadda ahaydna ra'iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horeeyay ee qof dumar noqda waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan idinkala soo qayb galo maantadan taageerida musharaxad Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan waxaan aad iyo aad aan u dhiirigelinayaa dumarka Soomaaliyeed kaalinta ay ku leeyihiin dalka waxa waaye haddana waxaan dhihi karaa waa markii ugu horeysay qof dumara oo u tartama xilka madaxtinimada dalka Soomaaliyeed insha Allah tacaala waxaan taariikhda ku xusi doonaa insha Allah tacaala waxay noqon doontaa markii ugu horeysay ee qof dumara wadankan xilka qabata xilka ugu sareeya insha Allah tacaala ku taageerayo madaxweynaha mustaqbalka hadii alle mudane Fawziyo Xaaji Aadan runtii galabta khudbad kuma soo talagelin laakiin taageeranimada ay soo qaaday waligeena waa taageersanaa qof dumar oo siyaasadahan u soo istaaga marka ka fahmi ahaan runtii aadaan u taageersanaa Fawziyo waana qoftii koowaad ee soo noqota wasaaradda arrimaha dibadda xilka soo qabatay haddana waxaan u rajeynayaa madaxweynaha mustaqbalka inay qaban doonto insha Allah aad baan u taageersanaa for President of Somalia وسلامتين دمانتين waxaan idin leeyahay maanta aad ayaan faraxsanahay waa kulankii aan kulannay oon ku kulannay xarunta weyn NDP Higsi xarunteedii weyneedaan ku kulannay waxaana ugu kulannay in aan soo dhoweyno walaashayna Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan in ay tahay musharax madaxweyne guushana inuu ilaahay siiyo yaan ilaahay ugu baryaynaa aanan soo dhoweynaynaa aan habeen iyo maalin u dhafraynaa xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay codkooda siiyaan u hambeeyaan Fawziyo inay u hambeeyaan runtii galabta waxay noo tahay farxad weyn inaan halkan isugu imaano oo aan dhiirigelin iyo hambalyo aan u dirno Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan marka aan aragno Singapore meesha ay maanta marayso oo aan ognahay inay gabar ka tahay madaxweyne iyo sidoo kale Liberia oo intaasoo sano iyaga oo dagaalo iyo colaado ku jireen markii ay gabar madaxweyne u noqotay ka baxeen oo dhibaatadii ay ka saartay iyo marka aragno wadamada caalamka iyo heerka maanta ay tiigsanayaan runtii waxaa mudan in la jaro dabarka ah in haweenka aysan qaban karin xil marka waxaan garab taaganahay Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan sidoo kale waxa maanta halkan inta aniga ka aqaano Fawziyo waxa ay horumarkeeda iyo heerka ay ku tilaabsatay ay tahay heer kasta iyo sifo kasta oo qof wanaagsan lagu tilmaami karo iyo wax qabadka ee ummadda Soomaaliyeed u qabatay waqooyi iyo koonfurba meel kasta oo ay mar kasta tagta iyo haddii ahaan lahayd qurbaha iyo meel waliba marka maanta waxaan taaganahay oo halkan aan isugu imaanay inaan ku dhiirigelino sidoo kale xildhibaanada iyo inta hoolka isugu imaan doontana aan kula talinayna inay codkooda siiyaan
fadhiyaan hanaankeenna dimuqraadiyadda iyo horumarkeennaba runtii meel weyn ayuu maanta gaaray marba haddii miiskii wax lagu qaybsanayay gabdhaha ay fadhiyaan oo ay u tartamayaan xilka ugu sarreeya madaxtinimada marka waxaan rajaynaynaa inta dhimanna inay gaaraan oo la jaro dabarka ah inaysan haweenka waxba qaban karin inta aan tusaalena aan u qaadanno wadamada colaadaha muddada dheer ay ka jireen oo ay gabdhuhu badbaadiyeen oo ay gacan weyn ka geysteen kasaarideeda marka runtii maantay waxaan leenahay shacbiga Soomaaliyeed iyo ummadaba in la garab istaago Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan gunti iyo gabagabada musharax madaxweyne xildhibaan Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan oo kulanka soo xirta ayaa ku dheeraatay ka sheekaynta rajada ay ka qabtay in dalkan hogaamiso aad iyo aad baan idinka wada mahadnaqayaa fikirkan wiilal dhalinyaro ah baa keenay oo yiri waxaan rabnaa inaan iska garab taagno galabta meel noo samee aan nimaadno oo kugu mahadnaqno gabdhaha ka soo wada qayb galay aad baan idinka mahadnaqayaa Soomaaliya sida loo sheegay in la dejiyay u baahan tahay xasilooni siyaasadeed nabadgelyo in dad qofku wuxuu xaq u leeyahay helo oo ah caafimaad tacliin nabadgelyo iyo horumar inuu helo qofka cashuurta bixinaya waa inuu helo wixii bulshada u baahnayd marka waxaynu u baahanahay helistu waa horta waa calaf oo ilaahay qofku qoray baa madax ka noqonaya maanta 39 qof baad oo raga ayaanu nahay aniga la tartamaya keligay haween mana islihi xataa haddaan waayo meel bay gaadheen gabdhihii Soomaaliyeed maanta berrito in badan baa isku soo daysa haddaan maanta anigu darbigii u jabiyey berrito in badan baa imaan doonta insha Allah ugu yaraan 5 baa marka dambe is sharaxi doona waa isugu kaymid inaan helo iyo inaan waayo guul baynu gaadhnay aad baan ugu faraxsanahay inaan dadka la midnahay haddii aad adigu tallaabo qaado isku kalsoonaato tiraahdo waxaasaan qaban karaa waad qaban kartaa oo kale aad iyo aad mar kale ilaahay waxay nooga baryeen nabadgelyo iyo horumar degdega iyo Soomaaliya degta iyo Soomaaliya xora iyo Soomaaliya maxay haytay ku faanta Soomaalinimadeeda aan ka faanin aad iyo aad baa u mahadsantihiin musharax madaxweyne xildhibaan Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan oo ka mid ah 39 musharax ee buuxiyay shuruudihii laga rabay ayaa hore dalka xilal kala duwan uga soo qabatay sida ra'iisul wasaare ku xigeen wasiirka arrimaha dibadda haatana madaxweynaha xisbiga NDP ahna gudoomiyaha dalada hiisi oo ay ku midaysan yihiin ilaa ay 12 xisbi siyaasadeed Muuse Maxamuud Jiiso Star TV Muqdisho